السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح آدي هذا وما تسنتهين وقال كم حرب أنا نجاه الله أرن طلبات كهورة دحضي ويل سوماليا ومل جاز ستيشن هو تراجدو أي كقاتان شذالك وقارد تراجه كجيري إسقو تكنية أرن تاسي وان أركيي مالمهان دم بدت فربضان ويلسو حريريين لكن وحا اسكودايي بل إن أن هلو qaar ka mid ah dadkii meesha joogay amaba familkiisa wiilkaasi si aan uga wareysto arrintan xiriir aan la sameeyay kadib ay ii suura gali waysana bal inta aan ka ogahay inaan idin la wadaago ayaan go'aansaday iyo maxay tahay qaladaadka dhimasho ay ka dhalan karto oo taraagleeda Soomaalida ay sameeyaan isla markaana aan loo baahnayn inay sameeyaan si ay uga badbaadaan in qatari ay ku timaado iyo waxyaabaha kale oo la yiraahdo Soomaalidu waa ay sameeyaan oo dhaqan xumada ah marka taraagada ay wadayaan arrimahaas oo ayaan idin la wadaagaya sidoo kale waxa jirta in maxkamad ku taala Minneapolis ay dambi ku heshay wiil Soomaali ah arrintii la xiriirtay Medicaid-ka oo uu musuqmaasuqay lacag ka badan 7 milyan oo dollar arrintaasina sidee ku dhacday waan idin la wadaagaya haddii alla yiraahdo balse toddobaadkii hore waxa dhacday in wiil Soomaali ah oo magaciisa lagu sheegay Sharma Arke in isagoo asaga iyo wiil kale ay gaari ay isla wadaan meelaha gas stationada ah oo laga qaato shidaalka magaalo ku taala gobolka Arizona oo la yiraahdo Joseph City in uu xilli waliba galaba inay casri ahayd aan u maleynayo sida saacada ka muuqanayso ku dhawaad 11 saac oo galabnimo ay ku dhaweyd in uu isiri inta gaariga shidaalka uu ku socdo bal salaadii casarka iska bixi sidaas darteedna gaari taraaga uu baxayay uu gaarigii wiilkii jiiray isagoo waliba salaadii ku jira haddaba arrintaasi kaamarooyin kala duwan ayaa duubay qaar ka mid ah gawaari ku jirtay in baakinka gas stationka iyo sidoo kalena gaariga baxayna la arkay isagoo gadaal u soo baxaya oo wiilka maraya kadibna horay u baxaya haddana mar kale sii maraya sidaasina uu wiilkaasi dhaawac ku gaaray markii dambana uu geeriyooday waxaan rabaa markaa inaan idin la wadaago goobaha gas stationada ah waxa ku yaala sidoo kale baakino gawaarida taraagada la dhigan karo sidaad aragtaan gaarigan waa gaarigii ay wateen qof markaas meesha joogay muuqaal uu duubay ayaa screenshot aan ka soo qaaday gaarigoodii wali waxa uu ku jiraa wiilkan iyo wiil kale ay wateen meeshii gaaska ay ka qaadanayeen oo gas stationkii ayuu ku jiraa inta badan West Coast-ga marka la xeebaha galbeed gobolada ku yaala marka ay dadku ay aadayaan taraagada wada inta badan laba qof ayaa lagu wadaa team qofku taraagada waxay yihiin solo in qofku keligii uu wato gaariga inuu team yahay oo team ay ku wataan arinta teamka marka qatar fara badan ayaa ka timaado qofkan marka uu keligii yahay isaga ayaa yaqaan meesha uu istaagayo iyo xilliga uu istaagayo laakiin teamka inta badan dhibaatada ka timaado waan idin la wadaagaya marka gas stationka iyagoo qaadanaya wiilkan salligiisa uu qaatay meeshii gawaaridu ay ka baxayeen amaba baakinka ahaato ayuu salligiisa dhigtay meel barxada uu rabay inuu ku tukado horta munaasab ma tahay in meelaha noocaasi oo kala ku tukato munaasab ma ahan salaadu waa waajib inaad tukato laakiin waxaa ka sii muhiimsan inaadan noloshaada meel qatar gelinaysa aadan ku tukan isla markaana aad meel gawaaridu aysan maraynin ay muhiim tahay inaad ku tukato wadankan sharciyadiisa waxaa ka mid ah highway gawaaridu ay 70 80 60 50 ay ku socdaan iskama goyn kartid laguma talagelin highwayga in lagu socdo amaba la dhaxmaro haddii gaari uu ku dilay macnaheedu waxay tahay inaad adigu qalad ka leedahay adiga ayaa tikid lagu dul saaraya meelaha wadooyinka yaryarka waxaa loo sameeyay calaamado cadcad oo pedestrian crossing la yiraahdo badan ayaa riixaysa badankaas istaag ayuu ku leeyahay marka gawaaridu ay wadada ka leeyihiin marka calaamada greenka ama white-ka ay soo baxdo waxaa lagu leeyahay soco waad socon kartaa marka ayadoo gawaaridii u furan tahay haddii aad marto gaari ku dilo adiga ayaa qaladka iska leh ticket ayaaba lagu dul saaraya waxa lagu leeyahay qofkan waa in ticketkaasi laga bixiyaa ka hor inta aan la aasin marka muhiimaddu waxay tahay marka aad goobaha gas stationada aad joogto meesha aad ku tukanayso inaysan noqon meel laba taraag dhexdooda amaba wadadii gawaaridu ay ka baxayeen hadda wiilkan waxa ay u muuqataa gawaariga taraaga waxa uu leeyahay meel la yiraahdo blind spots haddii qaybta dambe oo albaabada gaariga marka la rarayo iyo marka la dejinayo uu ku aadanaa wiilkan gaariga ma arki karo qofka waday maxaa yeelay camera gadaal inta badan gawaarida kuma xirno marka waxa ay u muuqataa wiilkan in isaga nafsad ahaantiisa salaada uu sujuudsanaa
maadaama uu arki lahaa gaariga haddii uu taagan yahay gaarigan ku soo socdo oo salaadiisa inuu ka baxo oo nafsadiisa badbaadiyay ay noqon lahayd walow qaatumo fiican uu ku dhintay oo isagoo salaad tukanayo uu dhintay laakiin su'aasha la isweydiinaya waxay tahay munaasab ma ahayd meesha wiilkan salaada uu ku tukanayay sida muuqata waa maya allahu naxariista ayaan leenahay wiilkan weliba waxa uu TikTok ayuu caan ka ahaa dadka giftarada ayuu ahaa dadka qaar sida ay ii sheegeen dadka TikTok ku jira oo geemida marka la ciyaarayo giftarada waxaan isku dayay inaan la xiriiro qaar ka mid ah wiilkii gaariga la waday inaan helo ama ehelkiisa inaan helo qof yaqaana ayaan u maray walaalkii ayaan helay wiilka aan la xiriiray ayaa weydiinay waxa yarkaas cilmi la yiraahdaa raba inuu wareysi kula yeesho waa uu ka gaabsaday marka hadda ma ogin in ninkii gaariga marsiiyay wiilkaasi la soo qabtay in kale xitaa waan isku dayay newsyada magaaladaasi ama xitaa Google-ka inaan ku raadiyo ma aanan arkin wax wara oo arintaasi laga qoray marka sababahaasi ayaa igu qasabtay inaan markii hore ka aamuso laakiin markii ehelkiisa ay diideen inay ka warbixiyaan arintaas ayaan go'aansaday bal waxyaabaha aan ka ogahay inaan idin la wadaago marka inaad laba taraag dhexdood aad ku tukato amaba meel aan munaasab ahayn aad ku tukato qatar noloshaada ayaa kaaga iman karta dadka inta badan xitaa waxay sameeyaan in wadada dhinaceeda shoulderka inay inta istaagaan ay iska weysa qaataan ay salli dhigtaan oo ay ku tukadaan arrintaasina qatar kala kaaga iman karta gaari ayaa breega goosan kara oo gaarigaadii meesha taagan iyo adiga uu ku mari karaa meelaha wadooyinka highwayada qaarkood sida meelaha buuraha leh waxaa laga sameeyay meelo la yiraahdo runaway track ram oo gaariga haddii breegyada uu goosto meelo loogu talagalay in lagu sii daayo oo gaariga uu ku istaago sidaad arkaysaan marka meelaha munaasabka ah salaada inaad tukato waa waajib laakiin meel munaasab ah inaad ku tukato ayaa wanaagsan hadda kaba soo qaad goobaha rest area la yiraahdo oo loogu talagalay taraaglaydu in ay galaan oo ay ku jiiftaan ama ay ku nastaan ama suuli ay ka galaan waa meelaha ugu munaasabsan oo salaada aad ku tukan karto waxay leeyihiin meelo cagaara meelo hoos oo la daday oo inta salligaada dhigata aad ku tukan karto intii aad rabto aad joogi karto marka waxaa ka muhiimsan intii gas station meel gawaarida hore iyo gadaal shidaalka intay markaasi qofku waxa ku soo leexdaa inta badan inuu shidaal ka qaato waa ay jirtaa in la seexdo taraag meelaha gas stationada gaaska laga qaato laakiin inta badan waxa loogu soo leexdaa in gaas laga qaato xilliyada habeenkiina waa la seexdaa marka haddii aad tiraahdo salaad subaxan waxaan ku dhex tukanayaa laba taraag dhexdooda qof ayaaba la gaaray waqtigii uu bixi lahaa oo saacadihiisii u soo laabteen adigoo tukanayo iska dhaqaaqay sidoo kale dadka tiimka ah oo labada qof oo gawaarida isla wada waxaa ku dhacday inta badan Arizona iyo California iyo gobolada fogfog aada markastaba qof ayaa jiifo qofna gaariga ayuu wadaa kaba soo qaad gas station ay ku soo leexdeen qofkii gaariga wadaa wuxuu damcay inuu suuli galo ama gas station wax ka soo iibsado qofkii kale gaariga la waday ayaa soo kacay isaguna ma oga inta badan communication kuna waa muhiim labada qof marka ay gaari isla wadaan qofkii kale ayaa soo kacay isaguna wuxuu yiri bal suuli gal amaba halkan wax ka soo gado baahi ayaa qabatay marka uu ka tagayba uu iska dhaqaaqay ma uusan u sheegin markii uu dagay ninkii jiifay ninkii gaariga waday war aniguna waan dagay ogow ma uusan dhihin asagana uu iska dhaqaaqay oo bartii ayuu uga tagay way dhacday dhowr jeer waxa laga yaabaa adigan ay daawanayeen inay ku dhacday waxa sidoo kale dhacda in gaariga oo wadada dhinaceeda yaala in qofkan uu isku dayay isaguna in uu qofkii jiifay in gaariga hoostiisa uu ku kaadiyo mararka qaarna gaarigii la marsiyo iyaduna waa ay dhacday amaba sidoo kale haddii aan la marsiinina intuu boodo uu iska dhaqaaqo qofkii kalena uusan ka warqabin marka communicationka labada qof oo gaariga isla wada waa muhiim dhowr sano ka hor Mareykanka waxaa ka dhacday in laba wiil oo Soomaali ah oo gaari isla wada gaarigii oo socda ay isku dhex feereen arrimo qabiilka waa naqana qabiil darteed marka at least haddii aad qof gaari la wadayso qof isku qabiiltiin wada haddii taagtaagida ka noqoto si aad arrinta wax xalisaan marka arrintaasina waa ay jirtaa waxyaabahaas oo idil waxay ka mid yihiin waxyaabaha qaladaadka taraaglayda ay Soomaalida ay sameeyaan hadda ka hor yaraan saaxiibano taraaglayda ayaa dhowr jeer waxa uu ii soo diray qaladaadka ay Soomaalidu sameeyaan goobaha taraag stoobyada ah ama gas station ama ha noqoto rest area waxa kamid ah marka suulida la galo suuliyada ku yaala gas stationada oo taraaglayda inay ku qubaystaan loogu talagalay waa kuwa ugu nadiifsan mar ayaan wadi jira gaariga anigu waan arkay marka qof baa galaya qof muslim ayaa tahay waxa la rabay in aad ilaaliso diinta islaamka isla markaana dadkii inaad ugu yeerto marka haddii dhaqankii diinta islaamka adiga oo muslim aadan ilaalin sidoo qof kale aad ugu yeeraysa waxaad arkaysaa in meeshii suulida oo loogu talagalay qofku gacmaha ama wajiga inuu ku dhaqdo marka uu ka soo baxo suulida in lagu weyse qaadanayo oo luqtii la saaranayo meelaha qaar waxaa lagu qoray gacmaha oo kaliya loogu talagalay in lagu dhaqo looguma talagelin lugaha in lagu dhaqo ayaa lagu dhajiyay markii la arkay arrintu inay faraha ka baxday marka biyo fara badan ayay halkii ku daadinayaan weyn iska soo baxayaan waxa jirta in sidoo kalena
taraagleeda way ku dhacdaa way ogyihiin maahan waxba la isku maqarinayo maanta in qofkii caag intuu ku kaadiyo ama bac uu ku saxroodo uu ku tuuro meelihii baakinka ah oo adkaysa kaadi caag anigu indhahayga ayaan saaray maqaayada Soomaalida halkan magaaladan aan joogo in bac oo saxra ka buuxda looga tago meeshii lagu tuuro ama caag kaadi ka buuxda arrintaasina xitaa meeshii qashinka lagu tuuray ayaa u muuqata qofkii ma geynayo kuma ridayo barti ayuu dhigayaa uuna uga tegaya arrintaas waxay ka mid tahay magaalo joog xumada ama dhaqan xumada qofkii dadkii laga yaabo xitaa diinta islaamka aad ugu yeeri lahayd inay ka cararaan oo yiraahdaan war saamba haddii yihiin dadkii muslimiinta ay u dhaqmayaan oo meelihii la nadiifiyo qof baa taagan suuliyada meelaha taraagistoobiyada oo nadiifinaya marka ayadoo dhala u eg oo nadiif oo qofkii galaya iyadoo biyuhu yaacayaan oo kasoo baxaya because lugihii ayuu halkii kusoo dhaqdo oo uu ku weyse qaatay caagadahan caanaha inaad qaadato biyo ka buuxsato ayaad meel gees inta tagta isaga weyse qaadan karta oo salligaada aad dhigato gawaarin aysan kugu soo maraynin marka arrimahaasi ayaa jira taraagleedu qaladaadka ay sameeyaan ayay arrintaasi ka mid tahay marka walaalkeen ma arrinta hadda lama ogo qaladkii xitaa qofka gaariga waday oo wiilkan dardaray waxaa loo baahnaa haddii uu arkay maadaama gadaalna uu u maray horeyna uu u maray wuu dareemi karaa taayarka gaariga inuu wax uu dul maray marka inuu istaaga ayay ahayd isaga naftiisa inuu baxa ma aysan ahayn qofkaasi dadka qaar waxay yihiin qof cadaan ayuu hindi ayuu ilaa hadda ma nogin laakiin dadkii ehelka oo rabnay inaan weydiino ma aysan noo suuragelin inay nala hadlaan sidaas darteed ayaan idinla wadaagayay inta aan ka ogahay ilaa iyo hadda marka goobta qofku salaada uu ku tukanayo waxaa muhiim ah inay tahay goob munaasab ah oo noloshaada aan khatar u geynaynin siiba goobaha rest area-da ayaa ka wanaagsan goobaha gas stationada gawaarida socota ayaa badan markaas maxaa yeelay meelaha rest area meesha gaariga la dhiganayo iyo meesha suulida lagu galayo waa ay kala fog yihiin xitaa meelo loogu talagalo coos leh oo dedan ayaa jira sida sawirada aad ka arkaysaan marka waxyaabahaasi oo idil waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo baahan yahay qofka taraaga wada maadaama uu yahay qof professionala islamarkaana sharciyada inuu ilaaliyo loo baahan yahay ay tahay in uu raaco walaalkeen allah u naxariisto haddii gacanka xaq daran ay dishayna kulley waa lasoo qaban doonaa qofkii arrintaasi ka dambeeyey waa in baaritaan lagu sameeyaa boolisku ay baaraan ay arkaan kaamarooyin badan ayaa duubay haddii arrimahaas ay wax ka soo kordhaanna sidoo kale haddii alla idmo waan idinla wadaagi doonaa ugu dambeyntii Soomaalida Minnesota waxaan ogeyn baaritaano kala duwan inay ku socdeen TFD Our Future Medicaid-kii autism-kii hadda shalay waxaa jirtay in xerbeegti ay dambi ku heleen wiil Soomaali ah oo ka soo jeeda Blaine Minnesota lacag 7 milyan ka badan ayaa Medicaid-ka kaarka caafimaadka oo musuqmaasuq uu ku sameeyay kadib markii uu furtay meel uu dhahayay dadka da'da ayaan ugu adeegaynaa isla markaana adeeg aan ugu qabanaynaa wiilkan waxaa la yiraahdaa Cabdifataax Yuusuf waxa uu lahaa company magaciisa la yiraahdo Promise Health Services waxaana muuqata in uusan ba xafiis lahayn oo mailbox ah uu ku adeegayo oo kambanigiisa mailboxkaasi ay address u ahayd mailbox waxa la yiraahdaa in inta boostada tagto aad soo furato in mail aad tiraahdo halkaas dadka taragleeda ayaa inta badan sameeya oo aan deganayn guri marka halkaas ay waraaqahada iyo waxaad ay kugu soo dhacayaan marka maba uusan lahayn ba xafiis halkaasi ayaa waxay u ahayd goob isla markaana lacagtii Medicaid-ka oo uu helay waxa uu ku gatay gawaari raaxo dhar qaali ah iyo sidoo kale alaabo kale waxa sidoo kale wiilkan shalay oo talaado ahayd ayaa xeerbeegti ay dambigan ay ku heleen waxaana uu musuqmaasuqay uu xaday sida ku qoran lacag ka badan 7 milyan oo dollar oo nolol qaali ah oo ku samaystay xerbeegtidu Cabdifataax Yuusuf oo 44 jir ah waxay ku heleen 6 dambi oo ah in uu gacan ka geystay isla markaana xatooyo uu sameeyay sida xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota ay dacwadahan ku soo ogay sanadkii la soo dhaafay uu soo baxay baariyaashu waxa ay sheegeen in Cabdifataax uu sheeganayay in adeeg uu dadka guryahooda ugu tagayay dadka da'da ah uu ku siinayay isla markaana community based oo ahaa mid community-ga ah laakiin waxa uu ahaa mid been abuura isla markaana muddo sanado ah mailboxkaasi uu address u ahaa lacagahaasi uu xaday oo dadka faqiirka ama u baahnaa uu ka xaday oo dhinaca caafimaadka waxa uu ku iibsaday gawaari raaxo dhar design ah oo qaali ah isla markaana sidoo kalena lacagtaasi sidaasi ayuu ku qaatay sida xafiiska xeerlaaliyaha Keith Allison qoraalkan ka soo baxay la sheegay waxaana xafiiska xeerlaaliyaha uu sheegay inay ka go'an tahay in inta badan lacagtaasi oo dadka canshuur bixiyaasha ay bixiyeen ay ka go'an tahay in dib loo soo celiyo Promise Health waxa ay sheeganaysay in adeegyo ay bixinaysay laga soo bilaabo sanadkii bishii July ee sanadkii 2019 marka muddo 3 sano ah oo xigtay lacag 7.7 milyan ah ayaa uu qaatay Cabdifataax isla markaana ma aysan jirin wax adeeg caafimaad ah oo uu bixiyay isla markaana in ka badan
7.2 milyan ayaa uu musuq maasuqay oo aan la garanaynin ilaa iyo hadda halka ay mareen. Cabdifataax Yuusuf waxaa inta badan lacag ka badan 1 milyan oo dollar oo Promise Health Services ganacsigiisa lagu siiyey. Waxaa inta badan uu ku shubay accountka qaaska uu isagu ay leeyahay iyo midka xaaskiisa oo Luul Axmed oo 40 jir ah. Waxaana ay ku qarash gareeyeen lacag ka badan 22,000 alaab ay gurigooda dhigteen. 42,000 waxay ku gateen gawaari oo raaxo, isla markaana 80,000 lacag ka badan waxay ku gateen dharka design-ka ah oo ay ka mid yihiin Coach, Canada Goose iyo sidoo kalena Michael Kors, sida xafiiska xeeraryaha qoraalka ka soo baxay uu sheegay. Marka lacagahaasi faraha badan ayuu qaatay, waxaana sidoo kalena uu noloshiisa ayuu ku qarash gareeyay, adeegii dadkii loo baahnaana ma uusan ugu qabanin. Marka xilliga la xukumayo weli waa ay dhiman tahay, laakiin 6daasi dambi oo kala duwan ayaa lagu helay in caafimaadkii adeegii caafimaad ee la doonayay in uu qabto dadka guryahooda loogu tagayo oo da'da ah uusan u qaban, isla markaana uu iska biilgaraysanaya lacagtaasina isagu uu iska isticmaalay isaga iyo qoyskiisa. Waxyaabaha ka soo kordhaya xukunkiisa haddii alla idmana waan arki doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.